الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد إن شاء الله تعالى waxaa ku duubaynaa meeshan brogram yar oo kooban oo aad iyo aad u qiimo badan aad u farxad badan ku saabsan ardayga ugu da'weyn oo masjidka alfaaruuq ardaydiisa ka mid ah aana filayana caalamka xitaa haddii la fiiriyo ardayga qur-aan dhigto ugu da'weyn inuu yahay baan xoogaa maanta waraysi aan la yeelanaynaa farxaddiisana aan la wadaagaynaa insha allahu tacaala waa adeer cabdi yuusuf ibraahim soo dhow adeer cabdi yuusuf baarak allah alaykum warahmatullahi wabarakatuh baarak allah fiik jazaak allah khayr waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo dhowr su-aalood su-aasha ugu horreysa goormo ayaad bilowday qur'aanka qur'aanka waxaan bilaabay 2008 adigoo da'daadu ay tahay da'daydu xilligaas waxay ahayd baan filayaa hadda waxaan ahay 75 marka waxay ahayd baan filayaa 66 adeer cabdi yuusuf adigoo da'dan ah oo aad u mashquulsan oo shaqeeyaan ku ogahay fuultimaad shaqayso aabba ah zawj ah maxaa kuu kallifay maraykan jooga inaad qur-aanka da'da aad ku bilowdo waxaa igu kallifay qur'aanka kariimka ah wuxuu yahay ayaan fahansanahay ama dareemayaa waxaan jeclaystay inaan ka baxo mugdiga qof aan cilmi lahayn waa qof mugdi ku jira oo aan u baxo aan ogaaday nuurka uu leeyahay qur'aanka kariimka ah maasha allah jazaak allah khayr qur'aanka markii aad bilaabaysay xaggee baad ka bilowday see baad u bilowday waxaan ka bilaabay alif baan ka bilaabay alfaaruq iyo maaragtay yaa ii bilaabeen macallimiinta waxaanan ka bilaabay alif waxmaale maasha allah jazaak allah khayr baarak allah fiik waa go-aan adag weeye hadda qur'aankii xaggee baad ka maraysaa alif baad ka bilowday hadda waxaan ka marayaa suuratulhuud oo ah suuradaha qur-aanka xagga dhinaca u badan waa kala barkii waan dhaafay waxaan marayaa suuratulhuud macallimiinta faaruq iyo ardada faaruqna si wanaagsan bay iila shaqeeyaan ii caawiyaan jazaak allahu khayran baarak allahu fiika maxaad dareemaysaa hadda ood marayso suuratu huud xilliga qur-aankaa soo bilowday iyo hadda dareenkaagu sidee buu yahay aad baan ugu faraxsanahay markaan soo dhex galo macallimiinta iyo ardada iyo markaan arko iyo qur-aanka sida loo akrinayo aad baan ugu farxaa inaan dhex joogo habeen iyo maalin ayaan jeclaystaa marka waa nuur baa ii baxayaa markaan dhex joogo salaamu calaykum alaykum salam watullahi barakatu maasha allah ilaahay hana nuuriyo waa nuurka qur-aanka weeye su-aashayda ugu dambaysa dadka muslimiinta ah oo laga yaabo inay ku fiirsadaan ama ay ku daawadaan lagana yaabo haddeer qur-aanka inaysan wakhti badan aysan gelinin maxaa dadkaas ugu baaqi lahayd fariin aad u diri lahayd ugu naseexayn lahayd waxaan kula dardaarmayaa in aan wakhti aysan lahayn waxbarashada qofkii walba ee qalbiga ku qabta ee go'aan leh inuu baran karo wakhti kasta iyo da' kasta uu joogo haddaad istiraahdo waad gabowday iyo waad tahay iyo waad shaqaysaa iyo cudurdaar aad samaysato waxba ma qabsan kartid marka qof kasta inuu bilaabo oo barto xilligiisana uu qaybsado uu qofku leeyahay yool iyo hadaf asalaamu calaykum calaykum salam jazaak allah khayran baarak allah fiik insha allahu tacala haddana adeer baan uga baxayaa wuxuu soo jeedin doonaa kelimo yar oo kooban oo ku saabsan ardayga dadaala ama qofka dadaala iyo qofka aan dadaalin tusaalayaal laga sameeyey farqigooda buu akhrin doonaa insha allahu tacaala adeer baan marka ku wareejinayaa mikrofoonka insha allahu tacaala isagaa barnaamijka inoo soo jeedinaya halkan waxaa ku yaalla tusaale yar oo kooban oo aan rabo inaan ingiliish ahaan ku fasiro ingiriis ahaan dadku sida badan dadku waa wada yaqaanaan ingiriiska tusaalahaas aad buu maxaa tusaale u yahay qofka shaqaysanaya ama qofka dadaalaya iyo qofka aan dadaalaynin marka magaca waxay u bixiyeen qofka dadaalaya winner qofka aan dadaalaynin waxay u bixiyeen loser qofka dadaalaya wuxuu leeyahay a winner always has a program a loser always has an excuse a winner says let me do it for you a loser says that is not my job a winner sees an answer for every problem. A loser sees a problem in every answer. A winner says it may be difficult, but it is possible. A loser says it is
possible but it is too difficult. ha marka intaasaa nagu filan warqaddu way badan tahay marka waxaan intaa u soo qaatay tusaalahaas yani qofkii dadaala inuu wax kasta samayn karo ma af soomaali baan ku fasira af soomaali baan ku fasiraya ninka guulaysta had iyo jeer wuxuu leeyahay qorshe hadaf program ama goal buu leeyahay ninka aan guulaysanin ee had iyo jeer khasaarana had iyo jeer wuxuu bixinayaa cudurdaal madaxa laga hayaa mashquul baan ahay waan jiranahay wax cudurdaar buusan ka bixaynin marka ninka dadaalay wuxuu leeyahay waan kuu samaynayaa let me do it for you waan kuu samaynayaa anaa kuu hagaajinayaa loserki wuxuu leeyahay that is not my job waxaan shaqadayda maa aniga ninka dadaalay wuxuu leeyahay that sees an answer for every problem ninka jawaab wuxuu leeyahay dadaalay wuxuu leeyahay answer kasta wuxuu ka jawaab kasta wuxuu arkayaa inay sahlan tahay ninka aan dadaalin wuxuu leeyahay answer kasta inuu yahay wax adag salaamu calaykum عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا بارك الله فيك أدر عبد يوسف إلهي سبحانه وتعالى ميزانك حسناتك كو قليو قرآنك أنت لمن الله كو لما يسترو فان كيسة يا عمل كيسة إله كسيه سبحانه وتعالى آد بضو ما سنتهي وحرجينا يا إن شاء الله تعالى قرآنك آد قادتي قوشيسة إن أدونك أخرض لبضو كوري دونت إن شاء الله تعالى جزاك الله خير يا معلمين تا إيو أرددا سكول أما مساجدك all waxa weeyaan rag dhalinyaro oo yaryaro aad u wanaagsan baa jooga oo quraanka 3-4 jeer dhameeyay oo aad ii kaalmeeyay iyo macallimiinta iyo imaam nin aanan u dhiibin oo aanan kitaabka hor dhigin malaha kulligoodna way caawiyaan salaamu calaykum marka ayagoo dhan waa mahadsan yihiin intaas baan kaga baxayaa جزاك الله خير بارك الله فيك waxaan ku dari lahaa dardaaran yar aniga insha Allah taala dardaaranka waxa weeye qof kasta oo muslima maanta fiirsada ama dhageysta فيديوغان أدير عبد يوسف أو أرضيغا ودا وين runtii inuu wax ka faa'iideysto oo wax ka qaato oo kugu bixiso haddii aad horay go'aan aysan ku ahayn inaad kitaabka Ilaahay daraasayso inay wax ka bedesho aragto da'da uu yahay meesha uu ka bilaabay quraanka iyo hadeer meesha uu marayo iyo waliba goolka wali uu siilahay doonay inuu kitaabka Ilaahay dhameeyo xifdina uu ku xujisiyo macnihiisa u barto insha Allah taala waa arrin runtii lagu daydo ama ku dayasho mudan way su'aalo labaad baa idin sheegi lahaa aniga macallinkii quraanka soo baray adeerkaygu ahaa macallin Yuusuf aw aadan Ilaahay u naxariisto subxaanahu wa tacaala waxaan xusuustaa quraanka markuu noo dhigayay da'bu ahaa sida adeer oo kale ka badan 10 caruur ayuu lahaa caruurtiisana arday wada ahayn qaarnaga iga waaweynaa qaar iga yaryaraaba sida taariikhda aan ku helay ama sheekada ay ugu soo gaadhay quraanka wuxuu bilaabay isaga oo da'daas weyn buu quraanka bilaabay go'aankaas iyo casiimadaas Ilaahay siiyay wuu ka dhabeeyay macallin dugsi siduu u ahaa ee kitaabka Ilaahay subxaanahu wa tacaala dur fadhiyay baa lagu ofsado ku dhintay dadkaas oo kalena waa dalka Ilaahay subxaanahu wa tacaala maalinka qiyaamada ahlu quraanka maalinka qiyaamada markay tagaan la oran doono iqra warattil wartaqi fa inna manzilataka 'inda aakhir ayatin taqra'uha waxa la oranayaa qofka ahlu quraanka maalinka qiyaamada marka la keeno quraanka akhri tartiibno akhri adduunka saad ugu akhrin jirtay daartanna waxa la oranayaa jaran kor ama fuul ayaa la oranayaa meesha ugu dambayso quraan aad ku dhamayso meeshaas booskaas jannada ayaad ka galaysaa ahlul quraan ahlullahi wa khaasatuhu dadka ahlul quraanka waa dadka Ilaahay gaarka waa ummada kale uu ka xigsaday Ilaahay subxaanahu wa tacaala waa qofka quraankii bartay ku amal falay gaarsiinaya ummada weeyaan marka insha Allah saddexda qodob qof kasta oo muslim rag iyo dumarba inuu ku dadaalo taas loo baahan yahay jazakumullahu khairan barakallahu fiikum kalimadii intaas aan ku soo gabagabeeyay waxaan ku wareejinayaa adeer Cabdi Yuusuf oo insha Allah taala aayad fi kitaabillah inoogu soo khatimo bismillahir rahmanir rahim wal asri innal insana lafi qusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri